maxaad u murugoonaysaa iyadoo ay tahay daqiiqad walba daqiiqada ku xigta fursad ayna kaaga ahaatay allaha samaawaadka abuura xaggiisa maxaad u murugoonaysaa iyadoo ay cuntadaada ay qoran tahay cimrigaagana uu kooban yahay geeridaadana aadan ogeyn goortay ahaan doonto maxaad u murugoonaysaa asagoo rabbigaaga kaaga naxariis badan hooyadaada ku dhashay maxaad u murugoonaysaa haddii aad dembi dhaaf weydiisato rabbigaaga asagoo ku irsaaqaya oona kaa tirtiraya murugooyin walba maxaad u murugoonaysaa rabbigaaga hadduu doono shay wuxuu dhahayaa noqo wuuna noqonayaa shaygii maxaad u murugoonaysaa kalsoonnida aan rabbigeena ku qabnay iyadoo aysan jirin wax u dhigma maxaad u murugoonaysaa murugadaada iyo guuldarradaada iyadoo ay ka qurux badan tahay iskudaygaaga iyo farxaddaada maxaad u murugoonaysaa adigoo allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey lixaad dhammaystiran iyo caqli wax fahma iyadoo ay jiraan dad aanan haysan nimcaddaas adiga lagu siiyey maxaad u murugoonaysaa asagoo allah subxaanahu wa tacaala habeen walba kuu imaanaya samaa'u dunyaa isagoo ku leh addoonkaygiiyo wax weyddiiso waan ku siinayaaye maxaad u murugoonaysaa adigoo allah subxaanahu wa tacaala uu kuu yaboohay awaamirtiisa haddaad fuliso wax walba uu kaa reebayna aad ka hartay inuu ku gelinayo jannadiisa maxaad u murugoonaysaa adigoo allah subxaanahu wa tacaala uu kuu kala caddeeyey xaqa iyo baadilka xalaasha iyo xaaraanta kuna siiye caqli wax weeleeya maxaad u murugoonaysaa nafsaddan allah ayaa ku siiyey adigoonan lagaala tashan hadhowna lagaa qaadi doonaa adigoonan laguu sheegin maxaad u murugoonaysaa haddaad tahay qof muslim ah allah ayaa ku xafidaye maxaad u murugoonaysaa adduunyo iyo aakhiraba boqorkooda asagoo ah allah subxaanahu wa tacaala maxaad u murugoonaysaa iyadoo ay culays walba gadaashii tahay fudayd ha murugoonina addoommadii allow allah ayaa maceena ehe